maanta waxaan wareysanayaa caasho sheelaal oo ah Somali women hooyo Soomaaliya oo ay maanta ka qayb qaadanayso African Festival of South Australia Hamish Square Adelaide South Australia marka xoogaa waxaan reer warfaafin inay ka siiso maanta sida wax u dhaceen maadaama aniga xitaa xoogaa aan leedahay marka maama caasho bal xoogaa bal waxa aad ogeed bal xoogaa bal faahfaahin iga sii bal maalintii dhaweyd aan tagnay shirka Afrikaanka waxaa la yiri laba mis laydima iyo hal mis baa la hayaa ma eesha muun yaala baa la yiri wuxuu yiri aniga dhar baan Afrika ka keensaday inaan gagataan rabaa ciyaar dhaansi yuusa sheegay wax kale uusa sheegay eesha waxay tir cuntana waa keensanaya dharna waa gadanaya fankalarna waa wataa intii laga qoray iisho isaga haduu maanta wuxuu la yimid inuu yiraahdo fankalaraan wataa miiska qasab ala igu sii waa gartay marka adiga hadda maanta marka maxaa isbedelay saaka marka ciyaarihii markii la yeeriyay maxaa isbedelay oo sidee bay marka khilaaf u dhaceen bal xoogaa bal dadka aan wax faahfaahinay umada meesha naagtu waxay tir Somali community soo gasho labada Somali community midna ma ahan annaga galnay kaalayna la yir markaan galnay waxa soo orday awil iyo dadku u watay magaca oo lagu yaqaan lagu yeeriyo Women Association Somali United minna loogu yeerin marka qaladka marka yaa iskala marka waxa iskala qolada Afrikaanka qoladana iskala marka hadaba waxay dhayn ministeed baa dhacay dib u noqda waa noqonay annagana loo horyeero hadan marka qaladka maanta waa iska cadiya waad aragtaa Soomaaliya waxa laga heshiis la saga yimaado waad u jeedaa maanta iisha miiskeeda markaan tagay waxa ku qoran arkay Somali community ayaa ku qoran meesha ay ku soo qori lahayn Somali Women Association hadana miiskiisa baa idin soo tusaya kaale la arag waxa ku qoran hal mar ii kaadiya marka cadeen baa loo baahan yahay meeshan hadhowdii qaladkan dadka laga faa'iideysanaya marka waxa loo baahan yahay in waa kana miiskiisa waxa ku qoran Somali community marka qaladka yaa iskala hadaba wada aragtaan kala arag waa kana ku qoran Somali community Somali community ku qoran war ma ku sheega miiskan wuu banaana marka isaga isqabsadeen oo halka fadhiyaan tabacdi ay dacwoodaan miiskan la siiyay kadib la siiyay kadib laga siiyay iisha koow salaadii halkaas iyada marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay khayr ku bedelo khilaafka inta laga wada jeedin in laga dhex faa'iideysanayo ama dhibka dadka waa dareemi kartiin dadkii wax garada qofku wax garanayo Somali meesha waxa weeye meesha waa jeedaa dhibka ka haysto Ilaahay khayr ha keeno hadaba waa insha Allah waxaan rajaynaynaa wada aragtaan ma sha Allah inta qofka soo qayb gashay xogaa inkastoo aan iskada yar leedahay marka United way joogan Somali Women Association way joogan waxa weeye insha Allah marka insha Allah khayr baan rajaynaynaa hadaba khilaafka inta la eeg wada jeedin maanta in laga dhex faa'iideystay Ilaahay qasku keen khayr ha keeno marka insha Allah waxaan rajaynaynaa wada aragtaan hawsha maanta meesha ka socota Afrikaanka wada ciyaaraya Afrikaanka wada baashaalayaan maanta hadana borjiifna waa tana ma sha Allah United ayraal ma dib male oo United ka socoto aniga iyadaba إن شاء الله ما يدب ملا ماشي خلاف كتير ما كلا صاريا والله بالله خلاف كتير صارينا برجي في أباي دب ملا ما يقدون ما إيش أنا مش ناقصون يا سيدي هل تغرسي لما تغارتي والله لما تغارتي قول يا سبحي رباي مركا هذا بقى حاجة عيارية عند أبونا Forever.
song and I got the African rhythm and I put them together. And let's see how that sound. Let's go, DJ. Just the Musica here today is participating in African Festival South Australia. I'm watch.